بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وين السلامي ولاله إن الله سعادة channel كنا سمكو كنا كلتشر وحد اللي أنت هبين وتهبين أحسن أنت معلومون أحسن كور كستينوتي كور كستين شغلنا الله سبحانه وتعالى خير يبارك هاي نسيه ولا عصبه حلي السود وهذا channel كوا channel كيني ولا هرو شغلنا وحلي يدكنا ومهتسنتهين قلدينا دنبنا ومهتسنتهين قليه إني هرو حلي share يا like يا ما شاء الله كمان كنا قروح تبدو ومهتسنتهين qolyihiina cusubna maasha allah share iyo like iyo comment-kiina iyo subscribe-ka idina sidoo kale ku mahadsantihiin. intaa ka bacdi walaalayaalow sidaynu u baranay maalin kasta oo talaado ah channel-keena waxay nooga soo baxaya barnaamijka dhaqanka wixii Allah subxaanahu wa ta'ala inaga garansiiyo. talaadii hore waxaynu ka soo hadalay marka hore guur muxuu yahay iyo noocyada uu kala baxo waxaana inoo joogtatiyo aynu leenahay bal hadda wiilka Soomaaliyeed iyo guur markuu gaadho wuxuu sameyn jiray iyo gabadha Soomaaliyeed guur markay gaadho waxay sameyn jirtay waxa kale oo inoo raaci doonta caawa inagoo isbarbardhig ku sameynayna bal hadda guurka hadda iyo halka la iska helo habla iyo wiilasheemka sida isu helaan iyo hablii hore iyo wiilashii hore isu heli jireen. haddaynu ku horeyno guurkii hore wiilashii hore waxay ahaayeen wiilal u diyaar garooba guurkooda kuwaasoo hanti badan sii dhaqda oo ay u mudan tahay geela ariga iyo lo'da fardaha adu xoolaha nool taas oo ay ugu diyaar garoobi jireen mas'uuliyadda ay dhabarka u dhiganayaan iyo reerka noloshiisa ku soo biiraysa hadday tahay gabadhu guursanayo iyo caruurta Allah subxaanahu wa ta'ala hadduu siinayo soo kordhaysa iyo hadday tahay reerku la xididaayo oo maxay tahay Soomaalidu guurku marka horena waa surdhubay marka dambana waa sina ballaadha uu si diyaar garoobi jiray waayo wiilku markuu guursado gabadhaasoo qora xaaladiisu kumay koobnaan jirin saddex buu lahaan jiray uu xurmayn jiray saddex buu lahaan jiray uu xurmayn jiray seedib uu xurmayn jiray tolka oo xaqiisaaba gurigiisa lagu soo hirin jiray la xurmayn jiray yacni wuxuu haan jiray reer ku soo biiray reerka oo la tirsan jiray. wiilkaasu gabadha markuu u fadhiisto oo uu raadsado uu guursado maasha Allah wixii Ilaahay ugu talagalay uu markaa hore ka bixiyo gabaati iyo yaradba waxay noqoto gabadhii loo soo arooso oo uu soo kaxeeyo waxa ka bacdi muddo ka bacdi la sameyn jiray in wiilka loo soo yara doonto. haddaba reerka soo yara doonayana wiilka ma iyagoo iska socday iman jireen maya inanta lafteedu intay gashaantida tahay ay guur bay u sii diyaar garoobi jirtay marka waxay sameyn jirtay inay gurigeeda sii samaysato ama sidaynu u naqaanay rarada iyo qabada wixii wax lagu shubanayo iyo guriga la gelaayo hadday alooltay iyo hadday caws tahay iyo hadday dhig tahay iyo hadday udug tahay hadday masaf tahay iyo hadday haan tahay iyo wax kasta oo guriga markaa Soomaalida uu ka koobnaa gudihiisa iyo dushiisa iyo dabadiisaba inantu way sii diyaarsan jirtay. inanta Soomaaliyeed waxay ahayd warshad maalin oo dhan reerkooda caawisa habeenkina wixii markaa u yaala qabyo guriga dhamaystirata. haddaba markay inantaa guriga Ilaahay uu qadaray loo kaxeeyo ninkeedii is calfadeena ay loo geeyo ay muddo la nooshahay waxa la sameyn jiray in hantidu raradii ama aqalkii ay sii samaysatay laga daba raro. waxaynu maqli jiray heblaayo intaasoo awr baa loo raray tiyo habla aad u qurux badan maasha Allah habla ay awrta hogaamin jireen aqalkii nooc kastaaba saaran yahay wiilal maasha Allah iyaguna waxaan ku aad u qurux badan oo hubkoodii wataana daba geli jireen kabacdi markay reerka tagaan reerka kale waxay afgaran jireen in loo soo yara doontay tiyo laga yaabo war kale in laba sii horeysiiyeyba marka dadku laba nooc buu haan jiray imikaba way isku dhex jiraa waxa jira nin faxala iyo nin xoogaa yara la xijecla adag hadda saasay tahay ninna faramadnaan kuma soo celin jirin ragga yaradka u soo doontay. waxaad kaloo aynu xasuusanahay inay nin iyo waagi ahayd oo nin walba wuxuu markaa hayo uu soo bixin jiray ninka qaar 10 halaad buu soo bixin jiray waayo geelisa intaas ka go'aysay ninka qaar halkay ragga qaarna 100 halaad habla ka bixin jireen iyo baarqabkii iyo qorigii iyo faraskii. haddaba si kastoo noqotaba waxa jiray iyaguna hablaha qaar laga bixin jiray lo'da iyo habla laga bixin jiray ari waayo nin walba wuxuu markaa haystay ee xoolihiisa noolka ayaa geela ugu dhigmaayay ama uga qaalisana. haddaba sidaynu ognahay Soomaalidu shayga ugu jecel yihiin ama ugu jeclaayeenba waa geela iyadoo aanay Soomaalidu qura ahayn ee xataa casrul jaahiliga carabta ee rasuulka kaleey salaatu salaam ka horeysay geelu shay aad u qiimo badan ahaa
xilligii asxaabtana geela aada loo xiisan jiray ilaa haddana geela qiimihiisu aanu marnaba hoos u dhicin. yaradku haddaba muxuu tari jiray? yaradku wuxuu tari jiray horta farxad buu ahaa. kow. lambar 2 inantanu reerka ay dhinantay dhalaan reerka waxay ahaan jirtay asad waxayna odhan karaa hanti bay ahaan jirtay ay wax ku bedeshaan maasha Allah tabaaraka raxmaan. ta saddexaad yaradku wuxuu yareyn jiray inta badan furiinka ilaa qadarka Allah subxaanahu wa tacaala ma ogiyey. sababta oo ah ninkan markay xoola ka baxaan wuxuu ku mitidi jiray gabadhu xoolahaasoo dhan ka bixiyay inuu haysto inta awoodiisa haddaanu qadarku soo dhammaanin. haddaba guurkii hore Soomaalidu kiyo sidaasa, guurka maanta Soomaalida waa sidii. habla imika iyo wiilasha imika maxay yihiin? guurkii hore Soomaalida waxaynu soo sheegnay inuu hidaraac ahaa oo la oran jiray haweenka iyo geelaba waa la hidaraaca. inanta aabaheed baa fiicnaa, inanta hooyadeed baa wanaagsan, inanta ayeedeed baa wanaagsan, inantu reer fiican oo yacni ayay ka soo jeedaa, inantu reer magac leh ka soo jeedaa. oo Soomaalidii hore xataa magangaliyadoo kale aad bay u xiisay u qiimeyn jireen. haddii dagaal dhaco kale yacni reer la magangeli karo kale ka soo jeedaa, inantu reer salaadiinay ka soo jeedaa. yacni waxyaabo badan baa inanta la hidaraaci jiray. imika maxaa la hidaraaca? imika hadda guurka imika waxaynu ognahay inay 99% lasoo raacay linkigu muxuu yahay? waxaa la iska soo raacay Instagram, waxaa la iska soo raacay Facebook, waxaa la iska soo raacay Snapchat, waxaa la iska soo raacay WhatsApp. adigu waa link raac weeyaan. sababta ah inanta Soomaaliyeed halkay waxaan ku berigii hore sugi jirtay reerkooda waxa u soo helaan ama inan ay waxaan ku meelaha xoolaha dhexdiisa la isku shukaansaday maasha Allah ay reerkooda u soo diri jirtay. imika inantu judhiba shaashadeeda sawir saaranaysaa inta badan. sawirkaas markaa inanka Soomaaliyeed waxaan social media dhex wareegayaan leemka baadiye la dhex wareegaya ma jiro xoolo la dhex wareegaya toone ayuu waxaan ku dhac halkaas dabeetan linkiga ku darsanaya. hadhow markaa maxaa la odhanayaa ninku geel ma leeyahay? maya. ninku baasaboor buu leeyahay. Ameeriku ka yimi, Austraaliya ka yimi, Yurub ka yimi, Kanada ka yimi. maxay heeto inanku hay'ad buu u shaqeeyaa, inanku company hebel buu u shaqeeyaa. marka halkan hablii hore ku qiimeyn jireen noolaha, imika hablahan imika waxa aad loogu qiimeeyaa moodka sida lacagta, shaqada, waxyaabahaas oo kale. lama eega ninkan waxa uu ka soo jeedaa, lama eega ninkan muxuu yahay, lama eega ninkan yacni inantan mas'uuliyadeeda ma ku filaan karaa. yacni khalaas haddii lagu dhahay ninkan baasaboor buu wataa dibaddu ka yimi dhac aabahay imika jooga waa ku taabanayaayo. marka muxuu guurka muxuu kaga duway guurka hore? hadda furiinka badan sababtoo oo ah meelaha la iska soo raacayo laysma yaqaano, laysma awool yaqaan, laysma asal yaqaan, laysma aaba yaqaan, laysma dabeecad yaqaano. dabeecadda markaa kala duwani waxa laga yaabaa waxyaabo badan ay keento oo sahasho fududayso. haddaba si kasto ay tahayba weli haddaba waxa meesha ku jira maasha Allah qiimihii inanta Soomaaliyeed. inanta Soomaaliyeed imika hadday dal joogto iyo hadday dibad joogto, hadday miyi joogto iyo hadday magaalo joogto, iyadoo halkiiba reerkooda weli safaaradu tahay, halkiiba waxaan reerkooda weli asad u tahay oo waxaan ku dhaqaalaha reerka 99 ama 99% ay hablaha Soomaaliyeed ka qayb qaataan. imika waxaynu maraynaa heer la yiraahdo reerka inaanay u maqan tahay maasha Allah ama inaanay meel ladan ugu jirto. waa maasha Allah reer nool wax badan maasha Allah tabaaraka raxmaan oo ay yacni ka faa'iidayaan. waayo inantu waxay ku wareeraysaa walaalkeed, wax ku wareeraysaa walaasheed, wax ku wareeraysaa hooyadeed, wax ku wareeraysaa aabaheed, waxay ku wareeraysaa qof kasto ehelka maasha Allah tabaaraka raxmaan. marka walaalayaalow insha Allah tacaala maanta halkaas inoogu joogayaa guurkii hore ee Soomaalida hidaraac ahaa iyo guurkan Soomaalida imika ee link raaca social media la iska soo raacayo. intaynu dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.